in sidaa loogu soo hiloobo loogu soo hirto madal lagaga hadlayo af Soomaaliga iyo qiimihiisa oo tiradii dadkii loogu talagalay ay buux dhaaftaa waxa ay tusaysaa sida wali aynu u noolnahay ee aynu u jirno una qiimeynayno jiritaankeeda umadeed qarannimo iyo Soomaalinimo guud ahaanba Soomaalida geeska Afrika aad baan ugu faraxsanahay idinkuna hambalyeynaya idinkuguna bogaadinaya shirkan caawa iyo qabanqaabadiisa iyo soo agaasimidiisa bini'aadmiga sidiisaba waxa kulmiya ee ay isku afkartaan ee ay isku fahmaan waa luqadda ama afka taasina waxa ay ku dhisan tahay xigmad ka soo maaxda maskaxda duniduna guud ahaanba aqoontii iyo cilmigiiba waxa uu ku dhisan yahay maskaxdii oo lagu soo turjumayo lagu soo gudbinayo aqoontii qofka ku tuubnayd afka hooyo ee uu qofkaasi magansado inuu xiriir ku sameeyo kula hadlo walaalkii kula hado bahda ay wadaagaan aqoonta ama dhaqanka kula xiriiro bulshada inteeda kale aqoontu ma aha afka uun ee waa wixii ilaahay garaadka uu qofka geliyay garashada uu siiyey sidii abwaanka Soomaaliyeed u yiri af qalaad aqoontu miya waxay ku tusaysaa taasi haddii aynu afkeenna hooyo naashino aqoonta dunida jirta iyo ta inaga inagu duuganba in aynu soo gudbin karno kana faa'iideyn karno la inalana wadaagi karo inaguna horumar ka gaari karayno waxaan doonayaa mawduuca inaan gaar ugu koobnaado caawa oo ku saabsan adeegsiga af Soomaaliga ee maamulka iyo ganacsiga waa laba mawduuc oo muhiim ah oo ka tarjumaya haddii maamulkii laga shaqeynayo iyo dowladnimadii barnaamijkii dowladda siyaasadii dowladda aragtidii xigmadda ku dhisnayd iyo fogaal araggii ay dowladdu lahayd waxay dadkeeda kula wadaagaysaa afka hooyo oo ay ku fahmayaan oo ay ku garanayaan awaamiirta iyo tilmaamaha iyo tusaalaha iyo hoga tusaaleynta iyo wacyigelintabana lagu kala qaadanaya oo lagu xiriirinaya shuruucdii waxa lagu qorayaa luqadii hooyo ama afkii hooyo si qofku ugu dhaqmo sharciga waxa xaq loogu leeyahay oo loogu qoro dastuurkii wuxuu xaq u leeyahay iyo waxa xaq loogu leeyahay iyo waajibaadka saaranba uu karto oo uguna hoggaansamo kuna dhaqmo marka waa muhiimadda uu afku leeyahay manhajkii waxbarashada ee loogu gudbinayay daayirteena iyo dhalinyaradeenna markii afafka ay ummaduhu leeyihiin ummad waliba afka ay leedahay ay ku qoratay oo ay ku turjumatay waxa hubaal ah lana og yahay inay ka fahmi og yihiin marka qofku uu wax ku baranayo af qalaad oo afkiisa hooyo uu wax badan ku fahmayo intayadii fursadda u heshay in luqadda af Soomaaliga ay wax ku bartaan markii dawladdii Soomaaliya ay turjuntay afka Soomaaliga ay horumarisay la qoray qoraalka iyo akhriskaba luqadeena lagu qaatay manhajyadii ku qornaa luqadda af Soomaaliga luqadaha kale ama Ingiriisiga ah ama Carabiga ahna la turjumay waxa ay noo fududaatay inaanu si fudud u fahanno wax aqoonta iyo xigmadda ku duugan macallinkiina waxa u sahlanaatay inuu tusaale iyo fahamsiin dhow oo faahfaahsan uu siin karayo ilmaha uu wax barayo waxa xasuusataan oo waliba aad u bogaadinaya bahdii afka Soomaaliga qortay ama turjuntay sida ay ugu heleen ereyga ku haboon ama la fahmi karayo dhowr mid baan tusaale ka soo qaadanaya hadday physics-ka masalan tahay kaynaan karaar xawaare waa waxyaabihii ay ku soo luqadii afka qolaad ku qornayd ee Ingiriisiga ay u soo turjumeen biology-ga bu'da oo kale ay ku turjumeen xisaabta jidka saablay dhamaystirka laba jibaar waxay u turjumeen luqad dadku fahmi karayo haddii xisaab la dhigayo iyadoo xisaabtii iyo lambaradii iyo qoraalkii iyo tiradii la qorayo baa haddana marka xisaabtii laga shaqeynayo la turjumayo la fahamsiinayo ilmaha luqadiisii baa si fiican oo uu fahmi karo loogu turjumay waa uu ku fahmay haddii biology tahay la mid haddii physics tahay la mid haddii chemistry tahay la mid turjumistaas macallimiintii Soomaaliyeed ee waaga iyo dadkii manhajka qoray iyo Soomaalidii af Soomaaliga ka shaqeysay ee qortay ay sameeyeen run ahaantii waxa ay tusaysaa in aqoon weyn inagu duugan tahay haddii aanu Soomaali nahay suugaanteena iyo dhaqankeena ay aad luqaddu meel weyn kaga jirto iyo dhaqanku afku waxa uu ka turjumaa dhaqanka ama dhaqan dhaqaalaha ummad ay leedahay qiyamka hiddasamida qiimaha ay ummad leedahay ee ay nolosha ku leedahay waa hub qofku adeegsado haddii uu rabo in uu nabad uu la gaaro cid ay jaar yihiin daris yihiin ama colaadi dhex martay waa hub qofku adeegsado haddii uu rabo inuu abaabulo dadkiisa
oo uu dagaal geliyo waa hub qofku uu adeegsado haddii uu rabo inuu wacyi geliyo dadkiisu nabad ku wacyi geliyo oo ku waaniyo afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jara abwaan Soomaaliyeed baa lahaa adigoo seef qaata oo qof ku dila ama kurta kaga jara waxa ay la mid tahay adigoo afkaaga maala suugaan hoga tusaaleyn iyo garnaqsi aad luqadaada ku jeediso afkaaga ku jeediso ayaa uu la xoog yahay halkii hub kale oo culus aad ka adeegsan lahayd Soomaalidu bini'aadmigu sidiisaba ummad kasta qiimaha weyn ayaa afka hooye ay ugu jirtaa waa aalada furaha u ah ama muftaaxa u ah ummadnimada haddii aan Soomaali nahayna qoomiyadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto geeska Afrika ama ha ahaato Soomaalida Soomaaliya Soomaalida Itoobiya Soomaalida Djibouti Soomaalida Kenya Soomaali meel kasta oo ay dunida kaga uuman tahay iyo daafaha dunidaba waxa kulmiya ee mideeya waa halka af ee ay wadaagaan ee ay ku dhaataan ee mideeya marka laga yimaado meelaha kale ay midnimada badan ka leeyihiin ha noqoto inay yihiin dad muslim ah boqolkiiba boqol oo sunni ah oo aan shiico ahayn oo shaaficiyada madhabta shaaficiyada haysta dadkaas haybta guud wadaaga ee ay midayso hiddasamida wadaaga dhaqanka iyo dhaqaalaha qotada dheer wadaaga hab nololeedka maalinimo wadaaga weeyaan Soomaalidu ee uu afkaasina u yahay gaadiidkii noloshooda haddii afku uu yahay ka isku xidha ummad oo ay ku faanto ka astaanta u ah Soomaalinimada iyo jiritaankeena ummadeed haddaynu Soomaali nahay waa ka sii xaq jirnaa waa in mideeyaa afkii hooyo waa isku keen xidhaa waa ku xidhiidhnaa waana isku fahanaa meel kasta oo aynu joogno oo aan la inoo kala turjumin waliba hadda oo qurbaha aad loogu sii maaragtay nolosha ugu baahday oo dad Soomaaliyeed oo badan ay ku nool yihiin meelaha aan maray run ahaantii dibadda waxaan aad ugu hambalyeynaya uguna badbaadinaya qurba joogga Soomaaliyeed sida ay ugu dhagan yihiin luqadooda iyo afkooda Soomaaliyeed hidahoodii iyo dhaqankoodii iyo jiritaankoodii ummadnimada ayna marnaba u hilmaamin burburkii kadib waxaa jiray hilow dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama ha noqoto akademiyada goboleedka af Soomaaliga ama Soomaalida kale meel kasta ay ku uuman tahay ama abwaaniinta Soomaaliyeed ee daafaha dunida iyo dalka gudihiisa iyo wadamada kaleba iyo Soomaaliya meel kasta jirtaba in loo hiloobo in laga shaqeeyo afka lana kobciyo tartan suugaaneed iyo aqooneed la sameeyo ee la isku xidho dadka la dhiirigeliyo dhalinyarada soo koraysa ee danaynaysa afka hooyo inay meel gaarsiiyaan dawladda federaalka Soomaaliya hadda iyo ka horba iyo khusuusatan intii imaka khaasatan ay jirtay xukuumadda nabad iyo nolol waxaanu ku dadaalnay in afka Soomaaliyeed uu noqdo saldhigga maamulka bilowgiiba waxaanu soo saarnay xeer waajibinaya in afka Soomaaligu uu noqdo luqadda lagu maamulo dalka la hirgeliyo lana nooleeyo lana dhowro laguna shaqeeyo hadday manhajkii tahay waxbarashada lagu dhiirigeliyo hadday maamulkii dawladnimada iyo qoraalladii la isu diraayay tahay in af Soomaaligu astaan iyo midnimo u yahay jiritaanka ummadeed Soomaali haddaan nahayna dawladda Soomaaliyeed nahayna meel gaar ah uu nagaga sii suntan yahay marka haddii maamulkii laga hadlayo aqoon shisheeye aynu ka soo qaadano cilmi iyo aqoon waa inaynu ku dadaalnaa sidaa waaga manhajkeena loo turjumay af Soomaaliga meelo badan oo kamid ah erey bixin loogu sameeyay nolosha casriga ah ee tadawurka sameynaysa ee horumarka laga gaadhayo ee hadba wax cusub nolosha ay ku soo kordhayso qalinleyda Soomaaliyeed iyo abwaaniinta iyo dadka af Soomaaliga ehelka u ah waxa waajib ka saaran yahay waalidiinta Soomaaliyeed waajib ka saaran yahay innagana dhamaanteed dawlad iyo shacabba meel kasta aynu joogno waajib inaga saaran yahay inaynu heegan u ahaano una taagnaano in aynu isku dayno si kasta oo ereyadaas lagu turjumi karo oo loo fahamsiin karo dadkeena ee aanu noqon luqadeena ama af Soomaaligu mid ay ku badan yihiin ereyada teknolojiyada casriga ay waajibinayaan ama nolosha casriga ay waajibinayso hadday tahay dhinac caafimaad dhinac waxbarasho dhinac technology dhinac wax kasta oo nolosha ama dhaqan dhaqaalaha ummad leedahay sahlaya ganacsiga sidoo kale kasoo waxyaabaha aynu u dhoofino dunida oo erey bixinteena iyo ereyneedena la ama aynu dhoofin karno waxay nooga soo degan wadamada dibadda ganacsi ama alaab buuxshirad kala duwan oo lagana yaabay ereyada lagu sameeyay warshadii iyo sancadii samaysay ay ugu bixiso abwaanada Soomaaliyeedna ama halabuurku markuu ereygii doonayo inuu isticmaalo laga yaabaa inuu sidiisii gabay Soomaaliyeed oo hore ay kamid ahayd Istanbul cadar la iima marin
udugna way daaray malaha cadarkii waagaa ka iman jiray udugii ka iman jiray Istanbul dunida ayaa Istanbul oo Turkiga inooga iman jiray baan u malaynayaa marka alaabta ganacsiga ee laga ganacsanayo in lagu turjumo afkeena qalinleyda Soomaaliyeed iyo abwaaniinta iyo dadka af Soomaaliga ehelka u ahi la isku fahmo oo islaanta reer miyiga hawdka joogta ama beeraleydii marka erigii af Soomaali loogu macneeyo ama ay ula baxsadaan ama ula baxaan waa ay fahmi karaan waanay kula xiriiri karaan qofka kale ee ay wax kaga ganacsanayaan ama ka iibsanayaan maamulkii haddii ay tahay sidoo kale wuxuu sahlayaa in dadkii ay isku fahmaan oo ay ku xiriiraan oo ay bulshada dhinacyadeedii kala duwaneed waayo cuquusha dadka iyo aqoontu isma la eka waa ay kala duwan tahay marka waa hab la iskula xiriiri karo lagu nooleyn karo af Soomaaliga marka anagu haddaanu nahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaanu u taagannahay in aanu dhiiri gelino aqoonyahanka Soomaaliyeed qalinleyda Soomaaliyeed abwaaniinta iyo indheergaradka iyo xeeldheerayaasha nooleynaya afkeena hooyo inaanu gacan ka geysano la shaqeyno akademi goboleedka af Soomaaliga akademiyada af Soomaaliga ee iyaduna ama sayniska iyo tiknoolajiyada iyo aqoonta ee Soomaaliya iyo kuwa goboleed ee kale ee ka shaqeynaya af Soomaaliga nooleyntiisa waa inaynu markaa ku dadaalnaa in dhaqankeena iyo hidaheena iyo taariikhdeena oo dhaqanka dhaqaale ee ummadu leedahay ay ku turjumaya ee luqadooda ama afkooda ku duugan inaynu nooleyno meel kastoo aynu joognabana uu inagu dhiigeena ku tallaalan yahay kuna tallaalaado ubadkeena iyo da'yarteennaba aynu barno kuna dhiiri gelino maalin dhaweyd waxaan aad dareenkayga u kiciyay ama shucuurtayda u taabtay caruur yaryar oo Soomaaliyeed oo qoys aan filayo inay ahaayeen oo ayadood la joogto oo Afrikayda heestii ahayd ku luuqeeyay oo qaaday oo aan filayo dhamaantiin inaydun aragteen aad bay runtii ii dhiirigelisay in da'yarteena yaryar oo soo koraysa aynu suugaanteena dhaqankeena heesaha hiddasamida wanaagsan ka turjumaya ummadnimada iyo Soomaalinimada ka turjumaya iyo adeegsiga luqadda iyo afka Soomaaliyeedba meel walba aynu niyadda ku hayno aan iskaanshano aynu wada jirno aynu wada shaqeyno aynu isku xidhnaano meel kastoo aynu joogno haddaan Soomaali nahay waxaynu ummadda inteeda kala dheernahay waxa weeye Soomaalinimo iyo afka hooyo oo ina mideeya isku keen xidha ummad wada jirtana inaga dhiga aad baan ugu hambalyeeynaya akademiyada goboleedka af Soomaaliga shirkan caawa ay noo soo qaban qaabisay iyo ka qaybgalayaasha tirada badan ee daafaha dunida madax iyo mas'uuliyiinba waxaan leeyahay shirku haynoo guuleysto si rasmi ah baanay madashu inoogu furan tahay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu